السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمر كلا إيو عشر كيني بارتو غيبتي أمداس وحويا والسيستم كو أوغلانيا إن ترافل أجسيغاغو سي أونلاينا وغوستو تيكت انترناشنالا أديغو إدنا أسي مرينين إنكو وحن شري دونا تيكت كومبليدا وانا kasal train doona markuu tigirkaasi aan jarno si aanu diyaarta ugu xisaabtano inta tigirka cancellation banu siin doonaa markaa fadlan ila socda insha allah haddii aad travel agency ku hanweydin inaad furtaan si aanan idin dhibin systemkan oo si fudud fahantaan haddii aad ka shaqaysaanna aad u baahantiin systemkan barataanna aad si online la socon doontaan haddii aanu hayn systemkan oo traffickiisa leedana waanu ku siin doona insha allah. Okay, cashirkiina waan bilaaban doonaa. Imika waxaan samayn doonaa booking. Marka intaana booking aanan samaynin waa inaan marka hore bal waxyaaba yarar iska sii wadanaa. Marka ila socdo hadda waxaan geli doonaa systemkii. Okay, passwordkayga gashan doonaa. qaybtii labaad part 2 gaan ku jirnaa. Okay, waxaan eegi doonaa customer baa ku yimi wuxuu ku yidhi waxaad ii eegtaa dateka Hargeysa London inta u dhaxeeya timeka dateku doonaya koorkan ku heli doono waxa weeyaan dd waa date time. Okay, dd waxaan doonaynaa Hargeysa iyo London. Okay, waxay kala horeeyaan. London is 2 hours. Okay, waxaan oran doonaa ignore dd Hargeysa hadday tahay tobankii London maxay ahaan doonta. mar haddii Hargeysa tobankii tahay London maxay noqonaysaa marka tobankii subaxnimo noqon kartaa tobankii habeenimo noqon kartaa. Okay, error baa ku jira, sorry. error ku jira waxa weeyaan labadan dhibcood ayaan loo galay tobanka saasaad u qoraysaa /London. Okay, London inku waa 8 habeenimo ama hadda inagu sorry inta yar aan nagu eliyo haddaan idhaahdo dd Hargeysa tobanka subaxnimo oo tobanka caadi baad qoraysaa. haddii noqoto habeennimadna waxaad qoraysaa 22 waa tobanka habeenimo waxay noqonaysaa London waa 8 habeenimo marka 2 saacadood baan ayaynu ka horeynaa. waa 8 habeenimo marka 2 saacadood baynu ka horeynaa London. Okay, marka waxaan doonaynaa wuxuu yidhi mar haddii waaye timekii aan soo garanno customerka wuxuu qoranaya qiimaha ugu jaban diyaaraddaasi. waxaan nahay 3 qof ka horanaya 3 qof seed ku helaysaa diyaaradda ugu jaban fxd. marka waxaa la yidhahdaa qaybtan fxd waa master pricing baa la yidhahdaa fxd Hargeysa. marka fxd ga waxaa ka horsiinaa 3 qof 3 Hargeysa / dateka doofis waa maxay b waa date. Okay, dateka ayaa b la oranaya
daydka qofku dhoofiyo wax weeyaan 10 abril 10 abril waxaa ku tegaya London. baag ma leeyahay? hadduu baag leeyahay waad oran kartaa waxaad sii raacaysaa d oo daydkiiya 10 May. waxaa kusoo noqonaya Hargeysa. laakiin baag waxaa laga yaabaa badanaa inaanay baag aanay ku weydiin mar hadduu lamaya intaasoo dhammaysa inta. diyaaradda ugu jaban aanu helayno waxa weeyaan 2667. markaa waa net fare. okay waayahay diyaaradda qaadaysa waa Ethiopia Airline. Hargeysa ka qaadaysa Addis bay dhigaysa. Addis diyaarad kale Ethiopia Airline ka qaadaysa waxay dhigaysaa Dublin. Dublin waxaa ka qaadaysa Ethiopia Airline kale waxay Dublin ka qaadaysa London bay geynaysa. timekii kacaysa timekii fadhiisanaysay wixii oo dhan kuwa qiimuhu ka ugu jaban oo ka ku xigaa waa 4230. dad hoose hoos socotay move down. okay qiimaha mar kasi qaali u sii noqonay marka dambe qaali. okay inta markaa waxaan samayn doonaa booking. okay waxaan qoraynaa family ayaan qoraynaa. haddaan doona hal qof aan qori karnaa. horta hal qof aan ku horeysiino. nm1 waa magac. last name qofka ay qoraysaa command / first namekiisa waa Axmed space middle nameka Xasan master titleka. okay inoo qaatay magacii qofka oo saddexan. okay waxaan ku xigsiinaynaa diyaaradda xilligu baxaya qiimaha itinerary baa lagaa. hadhowna waxaan ka salgarayn doono markaan tigidhkaan jarno. okay laba mid waan ku diiwaangelin karnaa. fxd na waan oran karnaa oo taa waxaa lahaa master pricing. fxd waxaa lahaa master pricing. okay fxd fxd taa waxaa master pricing. waxaan oran doonaa markaa fxd Hargeysa / daydka uu baxayo 20 April. waxaanu qabanayaa Dubai. okay lacagtaan u helnay Hargeysa Dubai waa 214. laakiin waa net fare maaha commissionkaaga waa saaranaysa. okay qiimahaasaan markaa qaadanay. diyaaradda waa maxay? waa Ethiopia Airline. okay waxaan markaa FXZ1 iibuu kare. okay TK okay maxaa loo soo gaabiyey? waa ticket states. okay itinerary waan haysanaa magaciina waan haysanaa. okay waxaan markaa addresskii qofka aynu ka qoraynaa. addresska qofka waxa weyn waa AP address passenger mobile m baad soo gaabsanaysaa. number qofka ka qoraysa marka home haddii uu leeyahay guri. sorry yes marka fxd waa master pricing aan ku sheegnay.
haddii affability aanu eegina an badanonaysa an dateku dhoofayo halku ka dhoofayo Hargeysa halku tegayo Dubai haddaad diyaarad sii raacinaysidna horasa airline iyo diyaaradaad oo qofku doorta laakiin iminka inagu master price baanu qaadanay oo qiimaha ugu jaban buu ku saaray master price okay AP address passenger mobileka waxaanu siin doonaa lambarka xasaas ka qori guri haddii lambar guri leeyahay waanu qorinaa haddii email leeyahay qamaan sensenet@gmail.com sidaas wixii kale okay marka telefoonka emailka iyo wixii halkaas nagu jira diyaaradii iyo wixiina halkaas nagu wada jira ticketkana waa confirming waa DK weli lama confirm karayn DH wayna halkaa noqdaa marka confirm PNR buuna siin doonaa way sugina marka okay inta markaan qorno shan baa muhiima inaad qofka magaciisa qortid inaad itinerary-ga diyaaradda aad qortid inaad addresska qofka qortid iyo inaad confirm garaysid itinerary-ga okay RF Ahmed ama Qamaan RF wax weyn waa from receiver ama receiver from qof hadda markaad baarisi aad ku helaysaa insha Allah okay markaan waan save kareyna RF double A semicolon ER okay ticketkii PNR ku keenisiiyey okay HK waa confirming marka wuxuu ahaa DK not confirming lama confirm karayn DK laakiin HK waa la confirm kareeyey iminka ticketkana waa confirming okay waan shari karnaa iminka tickerkan iminka ticketkaaga si codinka hadda wuxuu noqonaya ticket waxaan ticketka ka dhigaynaa halkan website baan geli doonaa websitekaasaan u gelinaa markaa okay websiteka waxaa check my trip okay copy PNR ka copy last day qofka dhoo qaadaysa okay website kuna soo kacay iska suginaa okay okay website waa kan halkaa waxaan gelinaynaa PNR keen soo koobiyeenay besti halkan keenay halkan baan ka keenay kaas weeyaan kaasana soo koobiyeenay last name-kana waa Qamaan okay waan aragno ticketkii noo soo baxa isugu eekaado codinka aanu qornay wuxuu noo noqon doonaa ticket markaa ticket combinada bal PDF aanu ka dhigno markaas aad u arki doontaan print oo print karayn kartaa sharing email ku diri kartaa PDF wala soo baxay ticket bal aragna hadaba ticketkan okay okay waxaan eegi doonaa marka ticketka inoo dhameeyo okay
أنا لاقي تيجي كان قريني مجي أوكا مستر أحمد حسن قمان موبايل نمبر كيسي موبل كي جوريا إيميل كيسي سؤال كتير أوكي حلو قدو في العتاك أبريل هرقيسة دبي department waa 5 galabnimo ayuu ka tegayaa Hargeysa waxaanu tegayaa 3 habeenimo Dubai. Okay, diyaarad waa confirmation number oo Ethiopia Airlines flight number waa okay meal cunto no special waxa cunto maan dooran confinement tigidhka waa confinement. Okay, Mr. Ahmed Hassan Kaman fare tape kan doortay waa economic meal dinner baan ku leeyahay asho waayo habeen ayaan hawada ku jiraya dinner cashay siinayaan. Okay, marka tigidhkii koodhkaan qornay wakaa koodhkaan qorayni markaasoo complete. Okay, okay, haddaba waa inaan ka salgaraynaa tigidhkan waayo tigidhkan already uu samaysay tigidhkan waa inaan ka salgaraynaa rt/qamaan. Okay, tigidhkan ka sal baan siinaynaa waayo waa inuu sameeyo marka waxaan ku salgaraynaa iminka matalan waxaad qalatay mobilka inaan ka saaran doonay number 4ka sigmatiga 4ka ku jiro aan ka saarayna saan uga saaraynaa xe number 4 segment 4 hadda 4ka maxaa laga saaray waxa laga saaray mobilkii kuma jiro wax mobila addresski waan ka saaray delete. Okay, marka waa inaan markaa saxaa waxaana ab mobile lambarka saxda waa kaa homekii lambarka saxda waa kaa email markaa waa inuu soo galaa markaa okay ab. Okay, marka saan igu save kareysmo waa r waxaanu sameynaa si igu sameysmo igu save kareysmo rf r waayo mar walba wax ka bedeshid waa inaad save kareysaa وساس وسيف رسي. أوكي، أكسر كرينا يبوك كهذا إكس آي حكى بحي التنبي لكن ولي التنبي يقول كتير عندي عربي واي سيف ماله مر والبونا سيف كريسا مر والبا وأنا سيف كريسا إنك وأنا كسر كري بوك سنكو جان كرا وحنكو جان كرا وإن تب ugalaa websiteki. Okay, refreshna waxaan doonayaa in aan diyaaradda Ethiopia Airlines meesha ka baxaysa mar haddii diyaaradda meesha ka baxdo wax faa'iido aniga naguma jiro markaa already waan ka salgarayna buugga. Okay, come on why nama soo saarayo waxuu soo saarayo haweenaaka ma jirto ignore. ignore hadana ignore markaa ig waa ignore ka salgarey weeyaan iga wada saar meesha rt/qamaan. Okay, wax diyaarada ku jira male diyaaradda waan ka saaray
lama saaray waanu cancel garaynay waxaa ku qoran this trip cannot be found it might have been cancelled laga yaaba in la cancel gareeyo waa cancel garaynay tigirkii hadda inooma shaqaynayo okay hadaad u baahantay inaad dhisid family waayo hal qofaan samaynay nm1 command slash ahmed xasan master one baan oonaya waxaan qorayaa gabadhayda xaaskayga iyo ilmaheeda yar iyo ilmo kale marka waxa la dhahdaa inf baa la dhahdaa infinite waa ilmaha yar dhabta lagu hayo childna waa ilmaha yar ee sanadka weyn 12 sanana u dhexeeya waa ilmo yar 2 jir ilaa 12 jir child baa la dhahdaa okay marka familygayga ayaan diiwaan gashanaya buugna samaynaya okay waxaan qorayaa gabadhayda magaceeda dambe waa nuur slash magaceeda farxiya space magacaabihii xamsi mrs okay qoys baa furaya inf waa ilmaha yar baan qoraya koorkiisa okay slash ilmaha yar magaciisa ilmaha yar ee ii dhashay waxaa la dhahdaa nuura mrs waad raacin kartaa titlekeeda last namekeeda oo waxa weeyaan xasan mrs slash daydka ilmaha yar u dhashay qasbana daydka ilmaha yar dhashaa okay February waxay dhalatay 15 okay qoyska marka okay halka waxaan ku hayaa aniga gabadhayda iyo ilmo yaro dhabta ku hayso waxaa noo hadhay childka markaa aan qoraynaa waxaa intaan siinay intaa okay wuu noo qaatay gabadhayda magaceeda waa farxiya aabaheed waa xamse awoogeedna waa nuur ilmaha yar ay sidato wax weeyaan nuura oo magaca aabahay last middle namekeygii nuura xasan mrs iyo dhaydkay dhalatay anigana waa aniga master ahmed xasan dhamaan okay ilmihii childkan ku xigsiin doona waxaa odan doonaa nm1 last namekiisa ilmaha muxuu noqonayaa xasan okay ilmaha magaciisa wuxuu noqonayaa khaalid space axmed master anigaa dhalay waxaa la dhahaa khaalid axmed xasan okay qoys fur waxaan qorayaa child waa caddaynay inuu child yahay qoys ku xig qoys kala fur waxaan siinaya idgaan siinaya wax weeyaan 4 sano jira ilmaha qoys 4 years qoyska xig okay halkan waxaan hayaa ilma child iminka imse qofaan hayaa ilma yara waa child ko hooyadood ilma yara dhabta lagu hayay iyo aniga 1 2 3 4 qof afarta qof qiimoona oo xira fxd okay fxd na wada oran kartaa an na wada oran kartaa affability waxaa xalan doonaa an 20 april ayaan dhoofaynaa waxaan ku dhoofaynaa hargeysa waxaan u tegaynaa colombo okay enter haddana go-an bag aan raacinayno kan waa one way bag baan raacinaya slash
CY star datekaa soo laabanaya 20 milyan waa inaad qiimay heshaa go and back. okay marka waxweyn go and back baan qaadan doonaa. waxaan qaadanaynaa diyaaradda ama ka inagu wanaagsan waxa weeyaan RT ka inagu jilicsan master pricing FXD. okay Hargeysa slash D 20 April Colombo slash D soo noqonaya 20 May Hargeysa aan kusoo noqonaya. qiimaha inteena nagu kacaysa waxa weeyaan 3818 dollar. waxaan markaa wan kofantiranaya waa qiimaha ugu jaban. qiimaha ku xiga waa 3800 kada yar kan baa qaalisan ka ugu mar walba jaban oo ka sare. markaa waan buugaraysanaya. maxaan ku buugaraysanaya FX1 waan ka helaa qiimaha. okay TK okay waa markaa waa TK okay waa confirm ticket state. okay booking company samaysanaya ila socda. telephone numberkeygii, mobilekii, gurigii lambarkiisii, email haddaan leeyahay. okay markaa receiver from qamaan aniga ayaa receiver from okay safre markaa. okay ticket company-daa sameeyey markaa piano intaasaan koobiisanaya. intaa markaan koobiisto last name-kana qamaan ayaan qaadan doonaa. okay bookingkii waa kan. okay aan soo dhawa garaysano saan u wada aragno. kani naga xig afartii qof oo kuwa afartii qof oo ka Mr. Ahmed Xasan Qamaan waa odayga xaafadda. Mrs. Farhiya Xamse Nuur waa islaantii xaafadda. Mr. Khalid Ahmed Xasan waa child ilmihii Rona. Nuura Xasan Mrs. waxay Nuura Xasan Mrs. Nuur Infinite. nuurkan yes nuurkan wuxuu ka yimi islaanta last name-keeda Nuur ah, Mrs. Farhiya Xamse Nuur. marka waxweyn ilmaha yar magaca hooyadii ayaa lagu daray waaye dhabtay ku qabanaysa ilmaha yar. dhabta ayaa lagu qabanaya ilmaha yar. marka macnihii islaanta Nuura ayaa ilmaha yar dhabta ku qabanaysa waa Nuur last name-ka islaanta ayaa lasoo qaatay. okay ana last name-kay wakaa hooyadii ilmaha yar hooyadeedna waa Nuur. labadii last name baa lasoo keenay waana infant waxaan ugu cadeeyay. okay haddaba markaan furno bookingkii wakaa odayga xaafadda ugu sarreeya magaciisa Mr. Ahmed Xasan Qamaan waa odayga. Mrs. Farhiya Xamse Nuur waa islaantii. ilmihi rajeelka iyo ilmihi infinity waa ilmaha dhabta lagu hayo. okay waa confirm Hargeysa to Colombo waa direct. okay confirm ticketka waa confirm marka salgarayn doonaa hadhow. Ethiopia Airline diyaaradda Ethiopia Airline. okay
fairtakuna waa economic. Okay. xilligan kacayno markaa shanta subaxnimo shanta galabnimo ayaan ka kacayna Hargeysa. Kulangool waxaan tegaynaa 7:50 habeenimo. marka one day bay nagu qaadanaysa. waa maalinta kale another day. Okay. marka tigirkii codinka aan ku sameynay waa tigir complete weeyaan. Okay. taba aan kasal karina tigirka XI RF semicolon ER. Okay. Okay. tigirkii waan kasal garaynay imika. tigirkii waanu kala sal garaynay. san ku ogaan karnaa RT. okay. diyaarad kuma jirto. diyaarada muhiimad waa in diyaarada laga saaraa. okay. markaan adshan garayno inuu sax yahay. okay. this trip cannot be found. It might have been cancelled. tigirkii waanu kasal garaynay waayo haddii kale diyaarad way ku xisaabtamaysa. ignore. okay. halkaa waxay nagu dhammaaday systemkii amadeus. habka loo isticmaalay inay hadda fudud tahay oo aan waqti badan kaa cunay in tigir international aad ku jiri kartid anytime. wayna soo dhaweynayaa wixii fikira iyo tala iyo tusaaleyna waa anigoo ah injineer Axmed Xasan Qamaan oo idinkaga tegaya sidaa iyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.